waxaan rajaynaynaa natiijo fiican iyo guul. rajaynaynaa insha Allah guulaan karaan inaan ka gaaro imtixaankan. Alhamdulillah aad ayaan faraxsanahay maanta imtixaanka ayaa ii soo gudbay. waxaan rajaynaynaa natiijo fiican. imtixaankii maanta noo soo idlaaday oo maanta noo soo dhamaaday insha Allah waxaan rajaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaalmaha ugu horeeya imtixaanka insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan karno sidoo aadaan ugu faraxsanahay maadaama aan ka qayb qaatay imtixaanka dawladda insha Allah waxaan filayaa natiijo wanaagsan. halkaasaytu maanta isugu yimiday dhammaan madaxdii gobolka iyo senatarkii ayaa halkaasaytu jooga sidaa darteeda waxaan maaragtay leenahay dhammaan ardaydii iyo macallimiintii halkaa imtixaanaadka maalmahan ku fadhiyey waad mahadsan tihiin waana idin hambalyeynayna warna qaro xiisa malahan imtixaankan waa furnay haddaan nahay maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo senatarkii aqalka sare waxaan ugu hambalyeynayna imtixaankan laanteed inuusan hirgel lahayn xildhibaanad aamina walaasheen aamina jiibaaley oo xildhibaanad ah oo dheer xildhibaanada wax dheer senatarkana hadduusan u suurgelin imtixaankan la soo qaaday wasaaradda uusan bixinin garantii ama maxaan ku leedahay kalsooni macnaha waajibaad intaas leeg oo gacantiisa u soo qaaday senatarka ma hirgel lahayn waxaan leenahay waxaan ugu hambalyeynayna gudoomiyaha degmada marka oo asna ammaankii degmadan suurtageliyey intaasoo degmada imtixaan ku galaan dugsiga sare waxaan leenahay marka gudoomiyaha degmada marka suuqa magaalada waxaan leenahay ilaahay ajir xalaal kaasi arrimaha bulkaaga iyo deegaanada hoos imaada waxaan leenahay ardaydu waa madaxdii berida aniga maanta madaxaana laakiin berri ayagaa madax noqonay marka halkan guddoonka waxbarashada ay ahayd sale marka waxaan leenahay waa guulaysateen waxaan leenahay awguuriyo ardayda kuwa baas ilaahay idinka dhigo waxaan isku hambaleynayo dhammaan badan imtixaankii ardayda loo soo xiraayo aadaa ugu faraxsanahay salaan kadib waxaan rabaa inaan idin sheego waxaan salaan idinkaga wadaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo runtii aad ugu soo shaqeeyay imtixaankan inuu imaado marka ama degmooyinkan oo dhan qoryoole iyo Kiswari inay ku galaan rabaa salaan idinkaga wadaa wax walba waxa lagu gaaraa dawladnimadana wax allaale wixii shacabka ugu baahneed waa soo gaareen waxa ugu horeeya waxbarashadu waay wax ugu horeeya caafimaadka iyo waxbarashadu waay waxbarashadii waa haysanaa ii sheegay wax walba annaga oo dawladnimada laga rabay ardayinka ilaa 300 iyo dhowr arday inay ku galaan degmada marka si nabad ay ku galaan aadaa ugu faraxsanahay amnigaas waxa aad ugu hambalyeynaa ciidamada ammaankii gudoomiyaha degmada marka sababtoo ah dadka isku xiran ka wada shaqeeya amniga mar walba inay magaalada amni ahaato oo mas'uuliyiinta iyo hay'adaha kulli ay ku soo kalsoonaadaan magaalada inay imaadaan waa wax laga shaqeeyay taasna waxa ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada annaga mar walba waxa u taaganahay waxaan nahay adeegayaal annaga ii sheegay inaan noo hambalyeysaan ma rabno dawladnimo loo hambalyeynaa annaga sidana waxa u taaganahay adeegayaal aan nahay idinkina idin adeegno waxaan diyaar u nahay inaan idin adeegno hadda waxaa soo socda imtixaanka sideedaadka imaanayo iidan waa lagu galaa magaalada gudoomiyaha gobolka aad iyo aad ugu mahadcelinahay Qadir Siidi sababtoo ah waxa waaye waa soo u socdo safar kale markiis la soo aad daneenay gobolka ii sheeg adiga xaruntii gobolka maadaama imtixaanka lagu galaayo wax badan iska soo shaqeynay dhammaan cid ka shaqeys waa hambalyeynaa laakiin imtixaankan meeshaan waxa lagu keenay dawladnimo mar walba anaga waxa diyaar u nahay dawladnimada inaan ka shaqeyno
madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaad mudan madaxweyne waxaan ku leenahay waalidiintii ardaydii ardayda waalidiintood aad iyo aad ay kugu hambalyeynayaan waan kugu mahad